السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawow janaalka Xangi Show. Mawduucan maanta ka hadli doono wuxuu noqon doonaa diyaaradii ugu horeysay dunida goorma la sameeyay, xagee lagu sameeyay, yaasa sameeyay. Fadlan intaanan guda gelin muuqaalka subscribe saar janaalka, muuqaalkana like saar, lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid. Cabbaas ibn Firnaas oo ahaa caalim muslim oo ku takhasusay cilmiga ixtigiska, chemistry-ga, engineering-ka iyo cilmiye kale oo fara badan. Wuxuuna ahaa mid aad u fikir badan, hal abuur badan leh. wuxuuna mar walba ku fikiri jiray inuu wax cusub ama hal abuur cusub sameeyo. Cabbaas ibn Firnaas wuxuu ku fikiray inuu u duulo sida shimbiraha oo kale. Si uu sidaasi u sameeyo mar walba, waxa uu daawan jiray qaabka cajiibka ay shimbiruhu u duulayaan uguna tegayaan dhulka. Cabbaas ibn Firnaas waxa uu samaystay aalad ama waxa uu ku duulo si uu u duulo sida shimbiraha oo kale. waxa uuna fuulay meel sare si uu isaga soo tuuro. Taariikhdu markay ahayd 852 waxa uu fuulay minaaradda masjidka Cordoba ee ku yaalay wadankaasi Spain. waxa uuna rajaynayay inuu u duulo sida shimbiraha oo kale. Cabbaas ibn Firnaas wuxuu garbaha ku xirtay suuman iyo marooyin ugu talagalay inuu ku duulo. waxa uuna bilaabay inuu iska soo tuuro minaaraddii. waxa uu dhulka ugu soo dhacay si daran, inkastoo dhaawacyo fara badan ka soo gaareen, laakiin Cabbaas ibn Firnaas ma niyad jabin. mar labaad ayuu isku dayay, isagoo nashqadaynaya aalad kale oo ku duwan tii hore oo ka samaysan baalasha gorgorka iyo waxyaalo kale. markii labaad waxa uu fuulay buur dheer, waxaana u suura gashay inuu u duulo sida shimbiraha muddo 10 daqiiqo ah. wuxuuna dhulka ugu soo dhacay si xooggan, waxaana dhaawac ka soo gaaray dhabarka. Cabbaas ibn Firnaas wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyay ee duulimaad sameeya dunida kuna fikira, laakiin mawduuceena wuxuu ku saabsan yahay diyaaradda ama majiinkii ugu horreeyay ee la duuliyo. weliba ku fikirtay inaad ogaato cidda samaysay diyaaraddii ugu horreysay dunida, sidoo kale ma isweydiisay sanadkii la sameeyay. haddii aad horey ugu fikirtay oo aanad weli ogaan, iyo haddii aadan horey ugu fikirinba, waxaan ku ogaan doonaa muuqaalkan. diyaaraddii ugu horreysay ee taariikhda bini'aadamka ama dunida waxaa si rasmi ah loo sameeyay ama ay duushay 17 Diseembar 1903. diyaaraddan oo ahayd diyaaraddii ugu horreysay dunida ayaa waxaa sameeyay 2 wiil oo walaalo ah oo si guud lagu magacaabo Wright Brothers ama walaalaha Wright, loona kala yaqaano Orville iyo Wilbur. labadan wiil waxay ahaayeen kuwo ku fikiri jiray inay mar-uun sameeyaan aalad duusha, kuwaasoo mar walba ku dhiirigelin jireen waalidkooda. hooyadood waxay ahayd mid aad u taqaana farsamooyinka, xisaabta, cilmiga, sayniska, taasoo carruurteeda ka dhigtay inay wax badan ka bartaan. aabbahood waxa lagu magacaabi jiray Bishop Milton Wright, hooyadoodna waxa lagu magacaabi jiray Susan Wright. wiilashani waxay mar walba isku dayi jireen inay aaladaasi sameeyaan, waxayna ahaayeen kuwa leh meel wax lagu daabaco, waxayna daabici jireen joornaalada. kadib waxa ay furteen meel lagu dayactiro baaskilada ilaa ay yeesheen meel lagu sameeyo baaskilada. sanadku markuu ahaa 1900 waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay tijaabiyaan aaladii ay sameeyeen. si ay u tijaabiyaan waxay u baahdeen meel ciidbacaad ah si ay markii ay soo dhacaan aysan wax saas u gaarin. halkaas ay aadeen waxay ahayd Kitty Hawk, North Carolina. intii u dhaxaysay 1900 ilaa 1903 waxay wadeen tijaabooyin kala duwan. markii la gaaray 17 Diseembar 1903 waxay ku guuleysteen inay sameeyaan diyaaraddii ugu horreysay dunida. maalintii 4 jeer ayay duulimaad sameeyeen. duulimaadkii ugu horreeyay wuxuu socday 12 ilbiriqsi, waxaana la duulay 120 fiid. kii labaad iyo kii saddexaad mid kasta waxaa kor loogu sii kacayay 175 fiid. kii afraadna wuxuu ahaa 59 ilbiriqsi, waxaana la duulay ilaa 859 fiid. walaalaha Wright waxay rabeen inay sii wadaan barashada iyo samaynta naqshado kale oo cusub. nasiib darro waxaa geeriyooday Wilbur sanadkii 1912. labadan walaalaha ee lagu kala magacaabo Wilbur iyo Orville waxay u dhasheen dalka Mareykanka. meeshii ugu horreysay ee diyaarad lagu sameeyana waxay ahayd Kitty Hawk, North Carolina.